in ay xukuumadda Somaliland ku baaqdo laga bilaabo waqtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhankayaga haddaan nahay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland. caawa halkan ay waxay ka soo jeedinaysaa dawladdu go'aanka ay ka qaadatay ama go'aanka ay ka gaadhay maxaan ku dhahdaa mowqifka xaaladda laascaanood mowqifkaana waxa jeedinaya afayeenka dawladda ahna wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta wasiir Salabaan Cali Koore wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga gudoomiyaha gobolka iyo acyaanta sharafta leh ee halkan joogta marka ugu horeysa xukuumadahan waxaanu aad uga xunnahay ama aad iyo aad uga tiiraayensanahay inay ku soo korodho arrin tiiraanyale oo ka dhacday gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood waxaanu ka tacsiyadeenaa dhammaan ciddii wax ku noqotay hadday ciidamada qaranka tahay iyo haddii ay tahay dadkii shacabka ahaa intaba sida wasiirka arrimaha guduhu sheegay xukuumad ahaan waxaanu sii daynay ilaa 3 madaxweynuhu ku jiro in laga wada hadlo oo wixii lagu kala duwan yahay miiska la isugu yimaado oo xal nabadeed iyo walaalnimo iyo ehelnimo lagu dhameeyo waxyaalaha lagu kala duwan yahay waayaha iyo waqtiga iyo sida wax u dhacayaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaynan awoodda ilaahay la lahayn awoodo ina ka sarreeya ay shaqaynayaan oo waxa dhacaya aynan bilaadan ahaan controli karin intaanu hadalay ka bacdi dadna waa dhinteen dhaawac iyo dhib kalena waa yimaadeen kadib markay xukuumaddu wada hadashay la garwaaqsaday inay habboon tahay la lafaguray waxaa la isla qaatay anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhinac fadhino in ay xukuumadda Somaliland ku baaqdo laga bilaabo waqtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhankayaga haddaan nahay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid la mid waxa la wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay diyaar u tahay in ay arrinta miiska wada hadalka timaado oo laga wada hadlo waxa lagu kala duwan yahay waxaan kaga ambabaxayaa hadalkayga dhibaatada jirta hadba meesha markaa ay taagan tahay ayay ugu yartaa maanta halka ay taagan tahay haddaynu ku afqabanno kulligeen guul baynu wada joognaa ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka ballaaran kii hore annagoo aan dhan kasta uu taabanaya khasaara waxaan ku celinayaa dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay diyaar u tahay inay miiska wada hadalka timaado xabadana joojiso walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka hogaamiya ee karaamada iyo sharafta leh ee arrintani dhibayso waxaanu iyagana ka filaynaa inay go'aamada kuwa la mid ah qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan miiskana la isugu yimaado lagana wada hadlo wixii aynu ku kala duwanahay waxaanu baaqaa islaanahay waa mid xambaarsan nuxurkii dawladnimo iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa maamulka ee nuxurka dawladnimo xambaarsan iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood aad iyo aad baan idin salaamayaa guul la weyn idin rajaynayaa waad mahadsantihiin